kusoo dhawaada taariikhdii laftii hura gaashaanle sare Axmed Xaaji Maxamuud oo loo yaqaanay Axmed Teerso. haddaba daawade haddii ay tahay markii kuugu horreysay ee aad soo booqato janaalkan ha iloobin inaad sabskraib garayso. mahadsanidin. gaashaanle sare Axmed Xaaji Maxamuud oo loo yaqaanay Axmed Teerso waxa uu ku dhashay Raaxaale oo ka tirsan degmada Jalaalaqsi ee gobolka Hiiraan sanadku markuu ahaa 1935. yaraantiisii waxa uu ku soo barbaaray Raaxaale halkaas uu ka bilaabay barashada Quraanka Kariimka. sanadku markuu ahaa 1950 ayuu ka qalin jibiyay dugsiga Quraanka isagoo xifdiyay 114 Quraanka Kariimka. sanadkii 1956 waxa uu soo ambabaxay Muqdisho halkaas oo waxbarashadiisii cilmiga shareecada islaamka iyo tafsiirka Quraanka Kariimka uu ka bartay. isagoo waxbarashadiisii ku dhex jira ayuu sanadkii 1958 bilaabay dugsiga sare ee Iskuul Discipline Islamic wuxuuna ka qalin jibiyay 1962 kadib markii uu ka qayb galay imtixaankii la dhexdhigay ardaydii Soomaaliyeed oo boqolaalka gaaraysay ayuu ku gudbay darajo aad u sareysa waxaana loo qaatay Leeli Sargaal ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxa uu waxbarasho u aaday dalka Masar sanadkii 1962 isagoo wax ka baranaya kuliyadii ciidamada Qaahira isagoo dalka ku soo laabtay sanadkii 1965 waxa uu u dalacay darajada xidigle waxaana loo bedelay qaybtii 26aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee magaalada Hargeysa isagoo loo magacaabay taliye horin ee ciidanka lugta. sanadkii 1966 waxa uu u dalacay laba xidigle sanadku markuu ahaa 1968 ayaa loo soo bedelay dugsiga tababarka ee Bootiko oo markii dambe loo bixiyay Xalane si uu u qaato tababar abaanduulinimo. isla sanadkii 1968 waxa uu u dalacay Dhamme waxaana loo bedelay ururka taliska guud ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana lagu magacaabay madaxa waaxda ee hoggaanka saadka ee xoogga dalka Soomaaliyeed. sanadku markuu ahaa 1970 waxa waxbarasho loogu diray dalkii la oran jiray Midowgii Sofiyeetka kuliyadda ciidamada ee dagaalka ee magaalada Moscow isagoo waxbarashadiisii ku dhex jira. sanadku markuu ahaa 1972 ayuu u dalacay gaashaanle 4 sano kadib markii uu soo dhameystay waxbarashadiisii u socotay 1970 ilaa 1974 ayuu dalka ku soo laabtay isagoo wata shahaadada cilmiga militariga ee sare isla markaana lagu maamuusay bilad sharaf waxbarashadiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsan awgeed. bartamihii sanadkii 1974 ayaa loo bedelay qaybta 6aad ee Baydhabo waxaana lagu magacaabay taliyagaaskii fadhigiisu ahaa magaalada Xudur ee gobolka Boqol isla markaana waxa uu dalacay gaashaanle dhexe bishii Julaay 1977 isagoo hogaaminaya ciidan lixaad leh wuxuuna ka qayb galay xoreyntii Soomaali galbeed isagoo dagaalkaas ku noqday gaashaanle sare. gaashaanle sare Axmed Teerso isagoo dagaalamaya ayuu ku shahiiday buundada Goday 16 Julaay 1977 isagoo lagu aasay isla goobta dagaalkii uu ku geeriyooday. shahiidnimadiisii waxaa lagu maamuusay bilad dahab ah iyo darajada gaashaanle sare. rabbi ha u naxariistee gaashaanle sare Axmed Xaaji Maxamuud Cusmaan Cabdulle waxa uu ahaa aqoon-yahay bartay cilmiga militariga intaasna waxa uu sii dheereed isagoo cilmiga shareecada islaamka yaqaanay luqadaha uu ku hadli jiray waxay kala ahaayeen luqadda carabiga ee uga baxay dugsiga sare iyo kuliyadda ciidamada ee dalka Masar sidoo kale tan Ruushka uu ku soo qaatay tababarkiisii ugu wanaagsanaa ee ciidan. Axmed Teerso dadkii wada shaqayn soo dhex martay dhammaan waxay ku ammaaneen wanaag badan iyo nin dadka u tixgeliya sidoo kalena wadaninimo weyn ay ku jirtay. wuxuuna madaxweynihii hore ee Soomaaliya rabbi ha u naxariistay Maxamed Siyaad Barre ku maamuusay taalo uu u dhisay Axmed Teerso. haddaba daawade waad ku mahadsantahay daawashada aad daawatay muuqaalkan fadlan wixii talo iyo tusaale ah inoogu reeb commentiga.